soo dhawaada daawadayaasheeda qiimaha badan oo waa walaalkiin xasan maxamed iyo kanaalkiinii nolol wanaag fadlan haddaad nagu cusub tahay anaga ilaawin subscribe muuqaalkan aan maanta idinla wadaagi doonaa waa muuqaal xiise leh kuwani waa wiilal ama inamo hadba saa u taqaanto hase ahaatee waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysay muuqaalka bilowgiisii maxay la qaylinayaan dhalinyaradani see muuqaalkani talo muxuu ka hadli laakiinse bal horta intaynaan ka hadlin aynu ista daawano soo dhawaada daawadayaal dhalintan ma aha kuwa maskaxda loogu jiro laakiin waa dhalinyaro la qabsaday inay kor u qayliyaan waayo waxa ay ciyaarayaan waa geem cusub kaas oo shuruudiisu ay tahay haddii aad ciyaarayso inaad kor u qayliso geemka markuu ugu horeyso waxa waaye aamusnaan horta waa diida aamusnaan dhan waxa waaye haddaa aamusto dhulka ku dhaca horta hadduu dhulku dhacona fishil waay marka adiga aamusnaantaa ka ilaaliya micnaa qaylea loo baahan yahay qaylada micnaa ay qayle oo kala baxda xataa qaylada adiga inkastoo dhalinyaro la iska waxa waaye marba waxaa ku qayliya maho sida waxaa leedahay adiga maaxoo kala iska leedahay caaca iska leedahay iska leedahay daarteed sida caadiga waxaynu naqaanaa in dhalinyaradu xiiseyso ciyaarista geemka sidoo kale ay aaminsan yihiin inay waqtiga isku dhaafinayaan hase ahaatee tani waa mid ka daran in qofkii waqti lumis uu ku darsado qaylo isagoo waqtigiisa luminaya uu ku bixiyo energy jir ahaana waxaad halkaasi ka dheehanaysaa dagaalka lagula jiro dhalinyarada islaamka gaaladu waxay jeceshahay in qofka dhalinyarada ee islaamka ay la dagaalanto waqtigiisa oo arrintaasi ka hadlaya geemka horta faa'iidooyinka oo leeyahay waxaa ka mid ah markii dhalinyarada isku wada imaado kale wax waqti loo dhumiyo labaayo kale in geemka aan isku mashquulino oo isku dhaxgalno mar walba aan waqti ku wada qaadano khasaaradu leeyahay waxaa ka mid ah in biyo u baato kale markii oo geemka aad dheelaysid doonto ay ka xirmato kale sida hadda codkayga ka dareemaysa xogaa qawaacir inay ku jirto waxaa la weydiiyey dhalinyaradani waa maxay faa'iidadiisu waxay ku sheegeen inay waqtiga isku dhaafinayaan laakiinse ma isweydiisay kii soo sameeyey waqti ma isku dhaafiyey samayntiisa mise waqti ayuu ku bixiyey siduu kaaga qaylisiin lahaa oo aad waqtigaaga ugu dhammaysan lahayd qaylo maxaa yeelay wax kasta layskama sameeyo oo waqti laguma bixiye se hadaf ayaa loo sameeyaa ugu yaraan qayla la iskaga baahan yahay waxyaabahaas dhayaan marka qayladii xitaa in muuqaalkani wuu dheer yahay laakiin talada aan la jecelahay walaalkayga dhalinyarada waa intaadan shay ka bilaabin ka fiirso isweydii maxaa faa'iidaa sidoo kale waqtigaaga ka faa'iidayso inta aad yar tahay haysoo dhan dhalinyara ayaad tahay si ogow inaad aasayso waqtigaagii xilligani waxay ahayd in dhalinyaradeennu ay gacmaha isku qabsadaan si ay dadkooda iyo dalkoodaba wax u taraan se ahaatee ma aanay ahayn inay iskugu yimaadaan inay waqtigooda ku lumiyaan waxanoo kale taasi iga raalli ahaada waxay ahayd taladaydii intaas ayaynu ku soo gebagabeynayaa muuqaalka adiguna daawadee nagula wadaag ra'yigaaga komitiga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu